laakiin shirarkan aan nimidoo dhani waxay iskugu soo ururayeen waxa weeye kan iminkaan ka soo baxnay oo kala yidhaahdo round table-ka Soomaaliya loogu talagalay oo ay ka soo qayb galeen dadaan xad lahayn yani sidii aan anagu filaynay ka sii fiicnaaday oo roomkii meesha aan ku jiray buuxsantay oo cid waliba danaynaysa inay ka hadlaan oo ka wada hadleen waxay isugu yimi cid alla cidii waxay nagu lahayd deymihii aan ka hadli jiray nagu lahayd baa isugu yimi ama wadanada ha noqdaan wadanada Paris Club la yiraahdo ama kuwa Carabta ee Paris Club la yiraahdo ama IFIs-ka kuwa la yiraahdo baananka giddigood halkan way isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha ay khudbadiisii dhageysteen iyaguna khudbadooda bay akhriyeen macnaheeduna yahay halkay Soomaaliya taagan tahay iyo waxay iyagu u malaynayaan meesha aan taagana annagu waxbaan isku malaynaynaa iyagu maxay u malaynayaan iyagu waxay u malaynayaan inaan shaqo wanaagsan soo qabanay giddigoodna waxay isku raaceen in Soomaaliya deynta cafinteeda la galo la gudagalo oo la iskaga yimaado oo Soomaaliya wixii looga baahnaa ee aan ku heshiinay sanadkiina dhaafay bishii 3aad maanta waa bishii 4aad oo aan ku heshiinay in Soomaaliya ka soo baxday ayaa la iska daba hadlay oo la iska daba qaatay oo la isku raacay sidaa daraadeed in support ama caawimo Soomaaliya loo fidiyo sidii deynta looga cafin lahaa taladeeda la galo ayaa halkan ku soo gabagabowday aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay shaqo badan baa wali noo hadhay runtu sidaa weeye laakiin waxaan isku raacsanahay Soomaalidu haday gacmaha isqabsato haday iyagu isku tashato inay isku tashan karto Soomaaliya sidii loogu ahaan jirtay inaan ahayn baa la isku raacay in wixii ay yiraahdeen waan qabanayna ay qabteen baa la isku wada raacay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan isku tashanno kharash lacag badan baa linagu leeyahay in laynaga cafiyana dadaalkeeda waa ku jirtaan waxa ku jira dadka cashuuraha bixiya waxa ku jira dadka nala soo hadlay yiraahdaa khayr Allah idisiya shaqada wada waxa ku jira dadka registrationka gala ee faraha iska qaada qaanuunka toosan doonaya inay ku socdaan ayaa ku jira waxa ku jira dawladdeena iyo dadkii danaynaya arrintan in hore loo mariyo baa ku jira marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa weeye rajada muuqata deynta waa laynaga cafin doonaa laakiin inagu aynanu isku tashanno sida wadanada kale ayaa loo baahan yahay inaan garbaha isqabsanaa loo baahan yahay in qof walba mas'uuliyadiisa ka soo baxo ayaa loo baahan yahay annaga mas'uuliyadda saarayna waxa weeye wixii dadka Soomaaliyeed ay noo dhiibaan ee ay nagu aaminaan tabtaa ay noogu aamineen sida maanta dadka halkan isugu yimid baa yiraahdeen tabtaa ay noogu aamineen iyo wixii aan ku heshiinay inaan ka soo baxayno ayaa anaga la nagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa waxa weeye dalkooda dhismihiisa inay qayb ka qaataan ilaa aan inagu kharashka inagu baxaya iska bixino oo aad jeebka ka soo saarto bariyo meel kuma gaarsiiso wali waxban bariyeena waxba badan ma inaga dhiman deyntii laynagu lahaa waa laynaga cafin laakiin dhaqaalaheena iyo wadankeena cid kale hore u marin kartaa ma jirto caawimo yaroon waxa lagu siiyaa at the end of the day waxay tahay waxa weeye inagu inaan isku tashanno oo aan hore u wada socono oo qof walba mas'uuliyadda u leeyahay ee xeerka Soomaaliyeed iyo distoorka Soomaaliyeed qorayo qof waliba waxa xaq loogu leeyahay haddii kale nation ma noqon karin daadiis anagu waxaan Soomaaliyeed u tilmaamaa weeye marka taasaan isku ognahay anagu xaqayaga waxaan ka soo baxayna wixii alle nagu ogyahay sharcigu nafarayo distoorkeenu nafarayo dadka Soomaaliyeed nagu aamineen ayaan ka soo baxayna waan ka soo baxnay adduunka iyo Ilaahayba waa nooga marxaati iyagana waxa laga rabaa marka inay caawimada dawladda ay siinayaan inay wadaan oo wixii lagu leeyahay bixiyaan waxa lagu leeyahay muxuu yahay wax walba la sameeyo adduunka wax yar baa laga qaadaa wax yar oo aan badeen qofkana dhibeen baa laga qaadaa ama cashuura lagu sheego ama customer lagu sheegay waxyaalo yar yar oo kale wax kastaba ha lagu sheegay dawladdu lacagta waxay ka keentaa waa dadku wax soo ururiyeen marka waxa la soo ururiyay halkaan inagu taaganay aad bay hooseysaa marka adduunyada kale iyo wadanada agagaarkeena aad u dhigto waxaan soo ururinaa wax yar weeyaan wixii la nooga baahnaa soo ururinaa weeyaan annagana xisaabta maan diyaar u nahay marka really sheekada inaga dhaxaysa annaga dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waa taa weey waxa xigi doona dib baan isku noqonaynaa SMP programkii ama deyn cafiskii geedigiisii halkan waan ka tagaynaa markaan imika Muqdisho ku noqono 25keeda Addis Ababa waan tagaynaa dadka halkan ku shiraya intooda badan sanduuqa lacagta waxaan tagaynaa hadii Ilaahay Addis Ababa taasaan ku soo dhamaystirayna oo shaqadii soo socotay 12 bilood ayaa soo afjarayna waxa kale oo aan samaynaynaa
lixda bilood oo soo socda wixii la qaban lahaa oo qoran baan iyadana keenaynaa taasaa markaa na wadaysa ilaa iyo aakhirka sanadka